ثمرات قيام الليل صلاة الليل faa'iidooyinka ay u leedahay qofka muslimka ah iyo midhaha uu ka goosanayo adduun iyo aakhiraba salaatuleylku waa salaad sunno muakada ah sunno la adkeeyey waktigeedu wuxuu bilaabmaa salaada cishaaye marka uu qofka muslimka ay tukado waxaanuu joogaa waktigeedu ilaa waagu u bariyo waagu markuu bariyo ayuu waktigeedu baxay dadkuna waxay u qaybsamaan laba qaybood qof u badinaya oo ku kalsoon inuu habeenka xaggiisa dambe salaatuleylka u kici karo iyo qof ay ula badan tahay habeenka qeybtiisa dambe inaanu toosi karin qofka markaa ka baqaya habeenka qeybtiisa dambe inuu toosi kari waayo waxaa u fadli badan salaatuleylka inuu tukado markuu salaada cishaaye ka baxo waana sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kula dardaarmay saxaabada qaarkood oo uu ka mid ahaa abu hureyre wuxuu ii dardaarmay uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam an uutira qabla an anaam inaan witriga tukado inta aanan seexan haddii qofku uu ku kalsoon yahay oo u badinayo inuu habeenka qeybtiisa dambe salaatuleyl u kici karo habeenka 3 meelood marka loo qaybiyo meesha dambe ayaa u fadli badan waqtu an-nuzul al-ilahi waqtiga ilaahay subhanahu wa ta'ala samaa ad-dunya uu soo dego soo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay ilaahay waa doomiisa ku leeyahay man yas'aluni fa'u'tiyahu yaa weydiisanaya oo aan siiya man yad'uni fastajiba lahu yaa ibarya najiba man yastaghfiruni faaghfir lahu yaa dembi dhaafi weydiisanaya waanu dembi dhaafaa salaada la dhaha salaatuleylku sanadkoo dhan bay mashruuc tahay oo la jideeyey oo la sunneeyey bisha ramadaanna si gaar ayaa sunanimadeeda loo adkeeyey waxaana laga dhigay bisha ramadaan salaatuleylka mid lagu tukan karo jamac ama jamac in lagu tukada ay tahay sida fadliga badan midhaha ay leedahay salaatuleylku waxaa kow ka ah salaatu leyli afdalu salaati bacda alfariida waxa laalo waxaa salaad la tukado waa salaada u fadliga badan marka laga yimaado salaadaha faralkaa oo salaad farala baa u fadli badan salaada xagga fadliga ku xigtaana waa salaatu leyl abu hureyra wuxuu ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi afdalu siyaami bacda ramadaana شهر الله المحرم صوم waxa u fadli badan soomka Ramadaan dabadi soomka la soomo bisha Ilaahay Muharram la yiraahdo wa afdalu salati ba'da al-maktubati salatu al-layl rawahu Muslim salaada faralka dabadeed waxa u fadli badan salatu al-laylka waa midhaha koobaad oo ah qofka salaada tukada inuu tukaday salaada u fadli badan marka salaadaha faralka laga yimaado ee salaadaha faralka ku soo xigta xagga fadliga midhaha labaad fiiha sharafu lmu'min qofka mu'minka salaatu leylku sharaf bay u yeeshaa adduun iyo aakhiraba gayrkiina way ka hormarisaa dadka uu la filka yahay way ka sarraysiisaa salaatu leylku sahal ibnu sacad wuxuu yidhi jaa jibriilu ila nabiyi calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil baa rasuulka u yimi malaku jibriil amar ilaahay buu ku socdaa waxaanuu sidaa fariimo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sido faqaala ya muxamed cish maa shi'ta fainaka mayit nebi muxamedow inkastoo aada noolaato cumrigaagu u gaadho kii dhimanaya baa tahay geeri ku dambaynaya wa axbib man shi'ta fainaka mufaariqu ciddaa doontana jeclow oo dadkan adduunyada jooga ka mid a waxaad ogaataa inaad ka tegi doonto geeri idin kala kaxayn doonto mid horeeyaba waanay dhacday taas nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii aadka u jeclaa xataa naftooda ka jeclaa ee cumar ibnu khataab uu ka mid ahaa geeri baa kala kaxaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo inantiisii faatima radia allahu canha oo aada isu jeclaa geeri baa kala kaxaysay wacmal maa shi'ta fainaka majziyun bihi
wax allaale waxaad doonaysid samee khayr iyo shar waa lagugu abaalmarin doonaa sida ilaahay subxaana watacaala uu yihi faman yacmal mihqaala darati khayra yara waman yacmal mihqaala darati shara yara waclam ana sharafa almu'min qiyaamu lleyl waa halka xadiidka aynu uga jeedno waxaad ogaataa qofka mu'minkaa sharaftiisu waa qiyaamu leylka waa inuu habeenkii salaatuleyl tukado wacizuhu istignaauhu can innaas cizadiisa iyo qiimihiisu iyo sharaftiisuna waxay ku jirtaa dadka inuu ka kaaftoomo waayo su-aasha iyo baryada iyo dadka in wax la weydiistaa qofka way dulaysaa sharaftay ka qaadaa iyo qiimaha waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamay gacanta wax bixinaysaa inay tahay gacanta sarraysa gacanta wax qaadanaysaana inay tahay gacanta hooseysa arrinka saddexaad salaatu leyl waa min acdami asbaabi dukhuuli اljanna qofka ilaahay subxaana watacaala janno geeye naarna ka badbaadiya waa qof guulaystay ilaahay jannada gelitaankeeda asbaab buu u yeelay asbaabta kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofka muuminka ahi salaatuleyl inuu tukado cabdullaahi bnu salaam saxaabiga la idhaahdo asalkiisa yuhuudi buu ahaa uu islaamay waxaanu ka mid noqday dadkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo nool uu jannada ugu bushaareeyey wuxuu joogay magaalada madiina markii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo muhaajira uu soo galay magaalada madiina wuxuuhi markuu rasuulku madiine yimi dadkii oo dhami waxay u yaaceen halkii rasuulku magaalada ka soo gelayay dabeetana dadkaasaan raacay buu ihi markaa waa yuhuudi falama tabayantu wajhahu caraftu ana wajhahu laysa biwajhi kadaab rasuulka calayhi salaatu wasalaam wejigiisii markaan indhaha ka buuxsaday ee si fiican aan u arkay waxay i caddaatay wejigiisu weji beenaale inaanu ahayn oo qofka beenta sheega beentu wejigiisay ku qoran tahay oo ay ka muuqataa fakana أwala شhayءi samictuhu takalama bihi an qaal wixii u horeeyey ee rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam magaalada madiine markuu soo galay uu ku hadlay iyo talooyinkii qiimaha lahaa ee dadka u jeediyey waxay ahayd inuu yidhi yaa ayuha الnaas afshu الsalaam وaطcimuu الطacaam wasiluu الأrxaam wasaluu bالleyli wالnaasu niyaam tadkhulu اljannata bisalaam rawahu tirmidi dadow salaanta faafiya oo qofka muslimka ah qofka muslimkee ka soo arbaxa ha salaamo kala salaamaana ha ka jawaabo waa la isku jeclaanaya isjeclaashahaasina iimaanku ka midi iimaankana jannada lagu galaa waطcimu الطacaam dadka raashinka siiya oo cibaadaadka aadka u fadliga badan niyo wanaagsan hadday raacdo wasilu larxaam qaraabadiinana xidhiidhiya wasaluu bileyli wannaasu niyaam habeenkii tukada iyadoo dadku ay hurdaan saacadaha dambe ee dadka badankoodu ay hurdaan salaatuleyl u kaca intaa haddii la sameeyo abaalmarintu maxay noqonaysaa tadkhulu ljannata bisalaam jannadaad nabadgelye ku geli doontaan manaa cadaabkaad ka badbaadi doontaan oo idinkoon cadaab soo marin ayaad jannada geli doontaan waayo acmaasha gaar ahaan salaatuleylku sida biidn illahi subxana wa tacaala inuu axaadiida ku arki doono waxyaabaha qofka dembiga ka celiya bay ka mid tahay ee qofka ka dhiga qof muslima oo mustaqiima oo toosan qofka sakda dhexe ee nafta hurdada aadka ay u jeclaysanayso ee dadku ay wada hurdaan ilaahay daraaddii u kacay dembiyada ilaahay daraaddii buu uga tegaya abu malik alashcari wuxuu ka wariyey nebiga calayh الsalaatu wasalaam inuu nebigu yihi ina fi اljannati gurafa yuraa ظaahiruha min baطiniha wa baطinuha min ظaahiriha jannada waxaa ku yaala qolol guryo guryahaas waa guryo aada u qurux badan qofka gudaha joogaa dabaduu arkaya qofka dabadda joogaana gudaha ayuu arkaya maanta gaar ahaan casrigan waa nooca guryaha loo jecel yahay guryaha ayuu ilaahay u diyaariyey oo jannada uga dhisay acaddaha allahu tacaala liman acama aطacaam guryaha ilaahay wuxuu u diyaariyey qofka dadka baahan raashinka siiya wa alaana alkalaam hadalkana dabciye oo
hadal naxariisi ay ku jirto dadka kula hadla wataabaca siyaam soomkana farabadiya soomkiisu inta faralka oo qura aanu ku ekayn faralka markuu dhameeyo bisha ramadaan ay u dhamaato soomam sunnaa buu bilaabaya lixdii shawaalku soomaya maalmaha kale ay ka mid tahay yowmu cashuuraa buu soomaya yowmu caraf buu soomaya wahaakada waafsha salaam salaamtana aada u faafiyo oo dadka muslimiintaa salaama waa cibaado dadka badankoodu aad ay u fududaystaan laakiin guryaha jannada ka dhisan ayaa lagu helayaa suurad sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wasallaa billayli wannaasu niyaam guryaha wuxuu ilaahay u diyaariyey qofka salaatuleyl tukada habeenkii iyadoo dadku ay hurdaan dadka arrinka noocaasiya kaga soocma oo kaga hormara imaamu axmed iyo tirmidi baa wariyey arrinka afraad ee midhaha salaatuleylka wa an yakuna alcabdu aw yakunu alcabdu bisalaati leyli min cibaadi araxmaan addoonku ama qofka muslimka ahi salaatuleylka wuxuu kaga mid noqonayaa addoomaha ilaahay uu sida gaarkaa u sheegtay iyadoo ilaahay addoon loo wada yahay kuwa ilaahay uu ku sharfay uu ku maamuusay inuu yihi waa addoomahaygii wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawla weliba magaciisa araxmaan ilaahay subxaana wa tacaala u tiiriyey addoomaha ilaahay sifaat buu u sheegay sifaatkaasi oo acmaal wanaagsan iyo dhaqamo fiican iyo akhlaaq saraysa waxaa ka mida wladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama waa kuwa habeenkii baryaaya iyagoo ilaahay u sujuudsan ilaahay u taagan oo ilaahay u tukanaya famin صifaati cibaadi الraxmaan qiyaamuhum bاlleyli lilahi rabi اlcaalamiin صifaatkooda waxaa ka mida in ilaahay subxana wa tacaala habeenkii ay u tukadaan oo lilaahi ay u kacaan marka liiskoodu ku biirayaa addoonka salaatuleylka ku dadaala arrinka shanaada ka mida midhaha salaatuleylka waa min asbaabi ziyaadati اliimaan qofka inuu iimaankiisu kordho oo iimaankiisu uu dhammaystirmo ayuu ka faa'iidayaa salaatuleylka ilaahay subxana wa tacaala waa ka yihi fi suurati sajda inamaa yu'minu biaayaatina aladiina ida dukiruu biha kharuu sujada sabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun waxaa si dhaba aayaadka ilaahay u rumeeyey kuwa aayaadka ilaahay marka lagu waaniyo waantoobaya marka aayad ay sujuudi ku jirtaa ay soo marto ilaahay subxaana wa tacaala u sujuudaya kuwa ilaahay subxaana wa tacaala u tasbiixsanaya kuwa ilaahay ammaanaya kuwa intaasoo camalo wanaagsanba samaynaya iyagoo kibir iyo isla weyni ka maran oo camalka wanaagsani sabab ugu noqon maayo inay kibraan oo ay isu bogaan oo ay iscajabiyaan khalqiga kalena hoos ay u eegaan oo ay xaqiraan sifaadkooda ilaahay muxuu ku daray kuwa aayaadka ilaahay si dhaba u rumeeyey ee iimaanku u dhammaystirmay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic dhinacoodu wuxuu ka kacaa oo uu ka dheeraadaa habeenkii marka dadka dhinacooda uu dhulka qabto gogashay ka kacaan iyagu salaatuleyl bay u kacaan yadcuuna rabbahum khawfa waطamaca ilaahay bay u tukanayaanay caabudayaan maxaa ku kalifaya arrinka noocaas waa baqa ilaahay subxana wa tacaala ay ka baqanayaan iyo rajo ay ka qabaan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo naxariistiisa arrinka lixaada ka mida midhaha salaatuleylka salaatuleyl tukafiru sayi'aat wa tanhaa can ilaahaam addoonka salaatuleylka tukada ilaahay wuu ugu dembi dhaafaa salaatuleylkuna sideedaba iyadaaba addoonka dembiga ka celinaysa oo addoonkii iimaankiisii baa kordhaya xidhiirhka uu ilaahay la leeyahay baa xoogaysanaya istiqaama iyo toosnaan ayuu ka qaadaya addoon wuxuu noqonayaa dembiyada ka fog haddii dembi uu ka dhacana si deg dega markiiba isu qabta oo dembiga ka soo noqda abu umaama saxaabiga la dhahdaa wuxuu yihi qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calaykum biqiyaami اleyl war salaatuleylka ku dadaala fainahu da'bu saalixiina qablakum dadkii wanaagsanaa idinka horeeyey
dhaqankoodii iyo caadadooday salaatuleylku ahayd markaa dhaqankoodii yeesha oo ku dayda wahuwa qurbatun ilaa rabbikum salaatuleylku ilaahay bay idiin dhoweynaysaa wamukafirun lisayi'aat salaatuleylku waa mid dembiyada baabiinaysa addoonka lagaga dhaafayo lagaga masaxaayo wamanhaatun lilaathaam waa mid qofka tukada dembiyada ka celinaysa salaada ayuu ilaahay guud ahaan sheegay addoonka inay xumaanta ka celiso ina salaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar wa salaada qofku uu si saxa u tukaday qalbiga iyo xubnahaba uu ka tukan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu kaga daydo qalbigiisa iimaan gelisa iyo alla kacabsi iyo khushuuc taasaa xumaanta ka celisa salaatuleylkuna si gaaraabuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam in addoonka dembiga ay ka celiso tirmidi baa xadiidkaa wariyey sanadkiisuna waa xasan arrinka toddobaad ee ka mida midhaha salaatuleylka qofku markuu salaatuleyl tukado qur-aan buu akrinaya oo salaadaasi qur-aan bay u baahan tahay qur-aankaasi qofka wuxuu dawo uga noqonaya khafladda oo qof habeenkii oo dhan markuu seexday ilaa waagu uu ka baryey mar qura ilaahay aan xusuni oo ilaahay aan soo hadal qaadini waa fii kafla waa qof moogani ilaahay kaga sugan wey lihaada buu sheegay nebigu calayh salaatu wasalaam inuu shaydaanku usoo kaadi tago xadiidka imaam muslim uu wariyey dukira cinda nabiyi calayhi salaatu wasalaam rajulu naama xataa asbax waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay nin seexday oo habeenkii oo dhan hurdo ku jiray ilaa waagu u baryey faqaala calayhi salaatu wasalaam daka rajulu baala shayطaanu fii udunayh kaasi waa nin shaydaanku labada dhagoodba uu kaga kaajay salaatuleylku qofka khafladda iyo mooganaantaasay dawo uga noqonaysa oo qof habeenkii intuu kacay ilaahay xusay oo qur-aan akhriyey oo rabbi subxaana watacaala baryey buu noqonaya wuxuu addoonku noqonayaa qaanit lirabbi addoon ilaahay u khushuuca oo ilaahay subxaana watacaala isu taaga wuxuu noqonayaa addoonka salaatuleyl u kaca qur-aan akhriya fi salaati leyl addoon xaasiliya oo habeenkaa loo qoro qanaatiir min alajr ajara aada iyo aada u waaweyn oo tiro badan cabdullahi bni camr ibnu caas wuxuu ka wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yihi rasuulku man qaama bicashri aayaati lam yuktab min alghaafiliin qofka salaatuleyl u kaca oo 10 aayadood oo qura akhriya 10 aayadood oo qura ayuu ku tukaday lama geliyo qofka laguma daro liiska kuwa ghaafiliinta ilaahay moogan qof habeenkii ilaahay u tukaday oo xusay ayuu noqdaa waman qaama bimiati aayatin kutiba min alqaanitiin qofka 100 aayadood habeenkii ku tukada salaatuleylka waxaa lagu daraa liiska qaanitiinta kuwa ilaahay adeeca subxaana watacaala ee ilaahay u khushuucsan ee rabbi subxaana watacaala u hogaansan waman qaama bialfi aayatin kutiba min almuqantiriin ka salaatuleyl u kaca oo 1000 aayadood akhriya intaa uu salaatuleylka tukanayo waxaa lagu daraa kuwa ajarka faraha badan ee waaweyna buuraha laaleeg kuwa shaqaystay ee kasbaday ayaa lagu daraa abu daawuud baa wariyey arrinka sideedaada kamida midhaha salaatuleylku addoonka salaatuleyl habeenka u kacaa ammaanta ilaahay buu helaya ilaahay baa ammaanay addoomaha salaatuleylka tukada cibaad الraxmaan inay ka mid yihiin buu sheegay wاladiina yabiituuna lirabbihim sujada waqiyaama ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay kuwa salaatuleylka tukada iyo kuwa aan tukani inaanay marnaba sinayn kuwa salaatuleylka tukadaa aad ay uga darajo sareeyaan kuwa aan salaatuleylka tukan sifaad badan oo wanaagsanna oo salaatuleylka qofka ku kalifaya ilaahay wuu u sheegay qaala allahu subxaana watacaala aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajida waqaa'ima miyay siman yihiin ka habeenkii kacaaya ilaahay isu taagaya saacadaha habeenkii ee marna ilaahay u sujuudaya marna ilaahay subxaana watacaala u taagan yaxdaru alaakhira iyadoo waxaa kalifaya uu yahay baqa uu ka baqanayo aakhiro
xaaladaha adag iyo cadaabka dadka qaarkood ku habsan doonana uu ka digtoon yahay wayarjuu raxmata rabbih iyadoo waxaa salaatuleyl ku kalifayaa uu yahay naxariista ilaahay uu rajaynayo uu doonaayo qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun isku garasho xataa maaha oo ilaahay isku si uma yaqaanin oo aqoonta ilaahay ay u leeyihiin isku mid maaha salaatuleyl u kacaya tukanaya iyo ka salaatuleyl aan u kacahayn lihada ba ilahay uhi waxaad tidhaahdaa miyay simayn aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun wa acdamu alcilmi wa aclaahu afdalu alcilmu billah cilmi waxaa u weyn oo u sareeya oo u fadli badan cilmiga addoonku ilaahay u yeesho faman qaama lilahi fi اleyli fahuwa caalimu billah ka ilaahay subxaana watacaala saqaha dhexee dadku ay hurdada ku jiraan dhinacoodu dhulka uu ku dhegan yahay bustayaashii waxay huwan yihiin ay ku hoos jiraan ka ilaahay isu taagay khawfa min allah warajaa liraxmatih baqa ilaahay uu ka baqaya awgii iyo rajo uu rajeynaya raxmadda ilaahay iyo ka aan sidaa yeelahayni ilahay isku si uma yaqaanin bal ilaahay wuxuu sheegay xataa inaan isku caqli ahayn oo qofka salaatuleylka u kaca uu yahay mid ka caqli badan kaan salaatuleylka u kicin inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxa waantooba oo wuxuu maqlayo wuxuu arkaya wax ku qaataa qofka caqliga leh salaatuleylku si uu qofku u qabatimo oo u noqdo mid joogteeya oo ay joogtayn bay u baahan tahay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waa kii cabdullaahi ku yihi laa takun mila fulan fainahu kana yaquumu leyl uma taraka qiyaama leyl cabdillaahi waan kula talinayaae hebel ninka la idhahda ha la mid noqonin oo muxuu sameeyey habeenkii buu salaatuleyl u kici jiray salaatuleylkii buu ka tegey si uu qofku u joogteeyo wuxuu u baahan yahay marka hore inuu naftiisa la jihaado oo naftiisa uu kula dadaalo oo iyadoo naftu aan macaansanahayn ee culays u aragta naftiisa uu ku khasbo marka dambe way macaansan doontaa waxay yidhaahdeen dadkii hore wanaagsanaa qaarkood kaabadtu qiyaama leyli 20 sana 20 sanadood ayaan dhibaato iyo culays ka dareemayay salaatuleylka oo haddana nafta aan ku cadaadinayay oo marnaba aanan dayn wataladadtu bihi 20 sana 20 sanadoodna waan ku raaxaystay oo naftiibaa intay la qabsatay macaansatay oo quudkeeda uu ka mid noqday oo marnaba aan dayn karahaynba salaatuleyl waxaa midhaheeda ka mid iyo waxyaabaa laga qaado nuur ilahay baa qofka qalbigiisa iyo wejigiisaba nuur saaraya xasan lbasri taabicii ahaaba waxaa lagu yihi maa baalu lmutahajidiina billeyli min axsani naasi wujuha maxay ku dhacday kuwa habeenkii hurdada ka kacee salaatuleyl u kaca inay dadka kuwa ugu wejiga fiican ay noqdaan faqaala liannahum khalow biraxmaan faalbasahum min nuurih waxa ay la khalwoodeen oo habeenkii iyagoo kelidooda ay hor istaageen allah raxmaanka ah deetana ilaahay wuxuu huwiyey oo dushooda uu saaray nuurkiisii salaatuleylka waxyaabaha qofka ka celiya ee ugu daran ee ka dabra ee ku culaysiyaa waa dembiyada ibraahim ibnu adham zaahidkii la odhan jiray nin baa u yimi ninkaas wuxu uhi inii la aqdiru calaa qiyaami leyl fasif lii dawaan salaatuleylkii baan isugu taag heli waayo maba awoodaba bal cudurkaa waxaan iskaga daweeyey sheeg faqaala laa tacsihi bالnahaar wahuwa yuqiimuka bayna yadayhi fi leyl maalintii ilaahay caasiin haddaad maalintii macsiyada iska ilaaliso ilaahay baa habeenkii ku kicin doona oo hortiisa ku joojin doona faina wuquufaka bayna yadayhi fi leyli min acdami asharaf inaad habeenkii ilaahay hor istaagtaa waa sharafta ugu weyn bay ka mid tahay waalcaasi laa yastaxiqu dalika sharaf qofka ilaahay caasiyeyna sharaftaasi ma mudna وqاl الفضyل بن عyاad رaحimه الlah إذا lm تqdir عlى قyam الleyl وصyam النahاar faعlم أnaka maxrum mukabl kabaladka khaطiئatuka haddaad maalintii soomi kari weydo habeenkiina salaatuleyl aad u kici kari weydo
waxaad ogaataa inaad tahay qof khayrkii laga hor istaago laga qadiyey waxaad ogaataa inaad tahay mid xidhxidhan waxa ku xidhayna uu yahay dembigaaga iyo khaladkaaga marka ilaahay u toobadkeen si ay cibaadaadkaasi kuugu fududaadaan culimada qaarkoodna waxaabay sheegeen arrinkaa si dhaba inay u taabteen sufyaan athawri wuxuu yihi xurimtu qiyaama alleyli 5 ashhur bisababi danbin adnabtuhu salaatuleylkaan tukan jiray buuri muddo 5 bilooda ayaan salaatuleylkii isugu taageli waayay sababtuna maxay ahayd hal dembi oo aan galay walaalayaal bishii ramadaan baynu ku jiraa si gaara ayaa salaatuleylka bisha ramadaan nebigu inoogu dhiiri geliyey qaala calayhi الsalaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbi qofka ramadaan salaatuleyl u kaca oo ilaahay hor istaaga isagoo rumaysan ilaahayna ajar kaga doonaya waa loogu dembi dhaafa waqaala calayhi الsalaatu wasalaam man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla qofka imaamka la tukada salaatuleylka taraawiix dhe tahajud dhe waa salaatuleyl magaca doona siduu bixi ilaa uu imaamku salaadaa dhammaynayo waxaa loo qoraa qofka habeenka o dhan salaad u taagnaa ajarka uu helo kale nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam salaadan aad buu ugu dadaali jiray naftiisana waa ku daalin jiray laakiin qalbigiisa ayaa ku raaxaysanayay ilaahay buu subxaana watacaala ugu mahadnaqaayay salaada markuu ilaahay u dembi dhaafay maanta waad aragtaanoo salaada maqrib inta masaajidada ku tukataa iyo salaatu taraawiix inta ku tukataa isuma dhowo aad bay u kala badan yihin waxaa muuqata dadka badankoodu salaada inaanay qadarkeedii siin qiimihii ay lahaydna aanay gaadhsiin haniimadii ku jirtayna aanay ka faa'iidaysan ee ay dayaceen aynu ku sabirno salaatuleylkaas habeenadaasi kooban sida jamaca loo tukanayo naftana aynu kula jihaadno si ay ula qabsato oo habeenada kale ee sanadkana ilaahay subxaana watacaala ay ugu istaagto